muslimiinta islaamka walaalaha Soomaalida meel ay joogaan adduunka waxaan doonaynaa inay naga qabtaan duqdan waayeelka oo ari ila dhalatay oo hadda dad aan haynin oo ay idin banaanka asal joogin aniga aan u dadahay nin waayeel oo bacad isbitaal loo imaaday in dhafiiq rab aan nahay muslimiinta walaalaha gacan qabada ka sugeynaa hooyo Saynab Salaad waa hooyo ifka wax u badan ku haysanin markii horeetana nolosheedu ay aad u adkayd mar horeetana aan idin soo gudbinay xilli ay ku sugnayd goob ay daad iyo biyo ugu soo galeen ayadoo barala'aan iyo nolol la'aan ah hooyadani waxa markii dambe toosibay xanuun maalinba maalinta ka dambaysa soo ridan hayay jidhkeedii sidaas ayuu ku dambeeyay hooyadani da oo kaliya ma hayso waa ka walaalkeed oo ka weyn oo welibana da ay u sii dhaxayso ayadii xaaladan ayay ku sugan tahay inta ugu badan ee haysatana waa xanuun iyo duruuf ku xeeran hooyadani shayga ma dhaca waxaan haystaa malaha aqalkayga liiga soo waxa way biyo horaanteeda liiga soo wani markaan wax Allah waxaan u baahanayn malaha qandha ay hayso galabtaan qandha hay hayso aleeda caafimaad way liidataa aad iyo aad hadda cudurka haya daawo hadda anagu meeshaan laga helaya uma hayna waxa lagu daaweyn lahayna uma hayna garaqaad muslimka walaalayn uma ka sugeynaa daawada laga helay dalka hadii daawo qaali oo dalka laga helay ay u baahan tahay in lagu dabaybo daawada la daacadeeda uma hayn waxa arxan u ah walaalkeed oo asaguba ah nin da ah oo indhaha ka xanuunsanaya haddana isbitaal laga keenay si indhaha loogu fiiqo hooyadani walaalaha muslimiinta waxaan u weydiinaynaa in qofkii nolosheeda qayb ka qaadan kareeto uu ka qaato haddii ay noqoto nolosha wixii ay cuni lahayd iyo caafimaadba wixii loogu samayn lahaa walaal hooyadani waa hooyada oo kaleeto adiga ayayna hooyo ku tahay ma haysato ubad kaleeto ilaahay ifka uu keenay oo aan adiga walaalka Soomaaliyeed ka ahayn waxaan ka codsanaynaa goob walba daafaha dunida ka joogto in maadaama ay u baahan tahay daryeel gaar ah oo cunooyinka idil aysan qaadan karin aysan xanuunkeedaasna uu yahay mid dawooyin kaalmaati oo qaali ah oo wadanka gudihiisa qaarkood aan laga helayn oo u baahan tahay inaad wuxuun ku soo tarto si wax loogu taro hooyadani inta ay ifka ku nooshahay ifka ayaa wax la soo yahay aakhira waxba la sooguma qaban karo wixii aad hadda hormarsato ayaana ka horeynaya waxaad adduunka ku cunto ma ahane wixii aad sadaqaysato ayaa aakhira kaaga sii horeynaya hooyadan inta aad awoodo ku soo tar walaale